bas tirsigiisu yahay 375 ayaa ka soo dhaqaaqay boosteejada basaska laga raaco xilli saqdhexe ah kadib abaaro 12 habeenimo. waxa uu ahaa baskii ugu dambeeyay ee ka soo baxa boosteejada. rakaabkii baska saarnaana waqtigaasi waxa ay ahaayeen dad faraku-tiris ah. baska oo dhex maraya wadada ayaa si lama filaan ah darawalku wuxuu meel fog ka arkay sida hooska laba qof oo taagan wadada dhexdeeda xilli habeenbarkii ah. qabow daranna uu dhacayo waxa ayna baska u haadinayeen labadaasi qof gacmahooda. baskii wuu istaagay, albaabkiina wuu furmay. labadii qofna baska ayay soo fuuleen. darawalkuna markuu arkay labada qof afka ayuu furtay naxdin iyo cabsi darteed. dhammaan rakaabkii baska saarnaa way qaboobeen oo way argagaxeen wixii ay arkeen dartiis. baska wuu dhaqaaqay kadibna wuxuu sii socday wadadiisa. laakiin asal ahaan kuwii baska soo fuulay habeenkaasi ma bini'aadan bay ahaayeen mase maya, iyo sababta rakaabka iyo darawalku u argagaxeen ilaa iyo heerkan. tan ugu muhiimsan ma saadaalin kartaa waxa ku dhacay baskan habeenkaas? su'aashan ayaa ah kuwa aan jawaabtooda ku ogaan doono muuqaalkeena maanta ee ila socda wade si aad iila ogaatid waxa ka dhacay halkaas. macluumaadka sheekadan cabsida leh waa mid ka mid ah shilalka ugu yaabka badan ee ka dhacay waddanka Shiinaha. ilaa maantana ma lahan wax sharaxaad ah. haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad aragto kanaalkayga aad xiiseynayso sheekooyinka cabsida leh, kani waa waxa aan ku soo bandhigi doono kanaalkani toddobaad walba. ha ilaawin inaad subscribe saarto si aad ula socoto mar walba ee aan dheeraynin. aan bilowno faahfaahinta sheekadeena. sheekadu waxay ka bilaabanaysaa sidaan kuu xusay bilowgii hore magaalada Beijing ee waddanka Shiinaha, gaar ahaan bishii 11aad ee sanadkii 1995. waqtigaasi waxaa jiray bas ka dhaqaaqay boosteejada lagu magacaabi jiray Yuan Ming Yuan. baskani waxa uu ahaa kii ugu dambeeyay ee ka baxa boosteejada maalintaas. lambarka baskana waxa uu ahaa 375. waxaa la rabay inay tani noqoto wareegii ugu dambeeyay ee baska, kadibna uu si caadi ah ugu laabto boosteejada, shaqadana ka bilaabo subaxda xigta sida caadiga ah. laakiin wixii dhacay waxay ahaayeen cagsigaasi gebi ahaanba. maalintan abaaro 12 habeenimo saqda dhexe kadib jawigu aad buu u qaboobaa, waxaana jiray dabeel. darawalkii baska ayaa soo fuulay baska, wuxuuna had iyo jeer la socotay kaalkaaliye oo badanaa gabar ahayd. shaqadeedu waxa ay ahayd inay baska gudaha kala socoto, rakaabkana nidaamiso, tigidhadana qaybiso. isla markii baska uu dhaqaaqay oo wadada in muddo ah ku socday, wuxuu istaagay meel gaar ah. wuxuuna qaaday 3 qof. mid ka mid ah waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo keligii socday, waxaana sidoo kale soo raacay 2 qof oo isqaba, yacni lamaana ah. kadib baskii wuu dhaqaaqay, masaafo kale ayuu wadada jaray ilaa uu ka gaaray mid ka mid ah boosteejada oo uu istaagay halkaasi. albaabkii ayaa furmay. halkaana waxaa baska soo fuushay haweeney waayeel ah oo da'weyn. waxay soo martay marinka baska dhexdiisa ilaa ay ka gaartay kursiga ka horeeya kan ugu dambeeya, wayna fadhiisatay kursigaas. baskii mar kale ayuu dhaqaaqay, wuxuuna sii watay socodkiisa. mugdiga habeenka iyo jawiga qabow lagu jiro darteed dhammaan rakaabku waxa ay ahaayeen kuwa aamusan, ayagoo gebi ahaanba muujinaya xaalad degnaan ah, sugayana inuu socdaalku u dhammaado oo ay guryahoodu gaaraan. wadada dhexdeeda iyo muddo kadib baskii oo socda si lama filaan ah, darawalkii baska ayaa bareega si xoog leh u qabtay, heer ay rakaabkii madaxyada ku dhufsadeen kuraasta ka horeeya. sababta uu si lama filaan ah wadada dhexdeeda u istaagay waxa ay ahayd in darawalku meel fog uu ka arkay 2 qof oo hortiisa taagan. si yaab leh waxa ay gacmahooda ku haadinayeen si uu u istaago oo ay u raacaan baska. halkan darawalku waxa uu ka xanaaqay dhaqankooda qalafsan iyo qaabka ay u joojiyeen baska, sababtoo ah wuxuu ku sigtay inuu jiiro. asal ahaan basaskan waxay istaagaan inta badan keliya boosteejyada rasmiga ah, ma istaagaan wadada dhexdeeda sidaan oo kale. laakiin si ka duwan caadada, rakaabkuna waxa ay filayeen in darawalku ka tegi doono oo iska bixi doono. laakiin waxay ka naxeen in darawalkii baska uu joojiyey oo albaabka uu furay. muuqaalkii ay arkeen kadibna waxa uu ahaa mid naxdin leh oo cabsi geliyey qulubta dhammaan rakaabka saarnaa baska. heer uu darawalkii naftiisa uu eegayay 2 qof isagoo naxsan oo afka furtay naxdin iyo cabsidii uu arkay darteed. isla markii 2dii qof ay baska soo fuuleen,
dadkii waxa ay garteen sababta darawalku u naxay oo u argagaxay heerkan. waxa ay ahaayeen laba qof oo leh astaamo weji qalafsan adag oo cabsi leh. waxa ay xirnaayeen wax u eg dharkii hidaha iyo dhaqanka ee hore ee Shiinaha, yacni dhar aan cidna xiran jirin waqtigaas, aad buuna u dheeraa waqtigiisa. hadda taasi ma ahan waxa la yaab kale ee mawduuca. waxaan nidhi waxay ahaayeen laba qof, laakiin xaqiiqdii kuwan waxay ahaayeen saddex qof. ma ahayn laba qof sababtoo ah waxa ay sideen qof saddexaad. waxa ay socdeen iyagoo jiidaya, madaxiisana hoos buu u fooriray. astaamaha wejigiisana waxay u muuqdeen sidii qof daalan oo taag daran. markii saddexdooda baska soo fuuleen, waxa ay sii mareen marinka baska dhexdiisa ah ayagoo haya ninkii saddexaad ayna jiidayeen, wayna aamusnaayeen oo cidna lama hadleen. dadkii baska la saarnaana way eegayeen ayagoo ka argagaxsanaa muuqaalkooda ilaa ay ka gaareen kursiga dambe, yacni kursiga gadaale ee baska. waxa ay fadhiisiyeen qofkan saddexaad dhexdooda, ayaguna dhinacyada ayay ka fadhiisteen. kursiga dambe waxaa la og yahay inuu yahay hal gobol oo isku xiran. qaabka rakaabka baska u fadhiyeyna waxa uu ahaa sidaan. ugu horreyn darawalka iyo kaalkaaliyihiisa ayaa horay fadhiyey. gadaashoodna waxaa fadhiyey labada qof oo isqaba. lamaanaha gadaashooduna waxaa fadhiyey wiilka dhallinyarada ah ee keligii socday. kursiga ugu dambeeya kan ka horeeyana waxaa fadhiyey, yacni wiilka gadaashiisa waxaa fadhiyey haweeneyda waayeelka ah. ugu dambeyntii saddexdan ayaa yimid baska, waxayna soo galeen baska oo waxay fadhiisteen kursiga ugu dambeeya baska. hadda waxaan filahayaa inaad ila socotid oo aad ogtahay sida baska loo saaran yahay. tanina waxay ka dhigan tahay in haweeneydan waayeelka ah ay ahayd qofka ugu dhow iyaga. waxay u fadhiday si aamusnaan ah iyo taxadar leh, wayna walwalsaneed oo meesheedii ku qabowday. muhiimaddu waxay tahay baskii wuu dhaqaaqay kadib. kaaliyaha darawalka ayaa dareentay cabsida ka muuqata wejiyada dadka. way u ishaartay ayadoo cod hoose ku hadlaysa rakaabka horteeda fadhiya, iskuna dayeysay inay dejiso rakaabka. waxay ku tidhi, waxaa laga yaabaa inay ka yimaadeen shaqo tiyaatar ama jilitaan ama wax la mid ah. daqiiqado ayaa ka soo wareegay, baskiina wuxuu sii wataa socodkiisa. wax yar kadib labadii qof ee isqabay ayaa darawalka u sheegay inuu istaago sababtoo ah waxa ay ku degayaan boosteejada. runtii darawalkii baska wuu istaagay, albaabkiina wuu furay, labadii qofna way degeen. hadda yaa inoo hadhay keliya wiilka dhallinyarada ah iyo haweeneyda waayeelka ah iyo kursiga ugu dambeeya oo ay fadhiyaan saddexda qof ee aan la garanayn ee hadda soo fuulay baska. marka laga reebo darawalka iyo kaaliyihiisa, baskii wuxuu dib u bilaabay socodkiisa. waxaa la yaab kale ayaa ah in haweeneyda waayeelka ah oo ahayd ee mar kasta oo baska uu socdo si cabsi iyo walwale hareeraheeda u eegaysay. kuwaani suurtagal ma aha inay bini'aadam yihiin gebi ahaanba, laakiin dhammaan dadkii baska saarnaa waxa ay ka walwalsanaayeen muuqaalka qariibka ah ee hortooda ka soo muuqday oo baska soo galay si lama filaan ah. way wada aamusnaayeen. intii lagu jira waddada way wada aamusnaayeen, kelmadna ma aysan ku hadlin markii laga reebo haweeneyda waayeelka ah oo hadashay sababtoo ah aad bay ugu dhoweyd ayaga. waxaa ka sii naxdinta badnaa ayaa ah inay aragtay waxyaabo ku kalifay inay ku dhaqanto si aad u caqli badan oo aan la filayn. haweeneyda waayeelka ah ayaa si degdeg ah u qabatay wiilka dhallinyarada ah oo horteeda fadhiyey, ayadoo ku qaylinaysa cod sare. waxayna lahayd tuug tuug. wiilkii dhallinyarada ahaa waxa uu ku jiray xaalad naxdin leh, mana oga waxa socda. waxay ku qaylinaysaa codkeeda ugu sarreeya ayadoo darawalka u sheegaysa in wiilkan dhallinyarada ah uu xaday boorsadeeda iyo lacagteeda. halkani wiilka waxa uu ka jawaabay asagoo isku dayaya inuu isdifaaco. wuxuuna yidhi, sideen kuu xaday anigoo hortaada fadhiya? laakiin haweeneyda waayeelka ah ma dhegaysanin, mana fahmayn waxba. waxay ku adkaysatay inay kaxayso wiilka oo ay tagaan saldhigga booliiska si loogu baaro wiilka. waxay ka codsatay darawalka inuu ama geeyo ama uu dejiyo si ay waddada u sii wataan oo u tagaan saldhigga booliiska. adkaysiga haweeneyda waayeelka ah iyo codkeeda sare darteed, darawalkii wuxuu istaagay waddada dhexdeeda, labadoodiina wuu dejiyey. wuu dhaqaaqay oo waddadiisii ayuu sii watay. hadda su'aasha sida caadiga ah, waxaan rabaa inaad joojiso muuqaalka oo aad hoos noogu qorto faallooyinka saadaashaada. maxay haweeneydan waayeelka ah uga degtay baska oo ay u samaysay tallaabadan? qor saadaashiina iyo waxay kula tahay. waxaana arki doonaa cidda saadaasheedu sax noqoto dhammaadka. aan sii wadno oo aan ogaano naxdinta ka dhacday halkaasi si wadajir ah.
kadib markii ay dejiyeen haweeneyda waayeelka ah iyo wiilkii dhalinyarada ahaa. Haweeneydii waayeelka ahayd waxa ay iska daysay wiilkii, waxa ayna wadadeeda u sii wadatay si dabiici ah, sidii in aysan waxba dhicin. Wiilkiina wuu naxay, wuuna yaabay, wuxuuna u yeedhay isagoo leh, miyaadan dhihin waxaan ahay tuug iyo xade? maxaa kugu dhacay hadda? waad socotaa sidii in aysan waxba dhicin. Kaalay aan tagno saldhigga booliiska. Haweeneyda waayeelka ah si degan ayay u istaagtay dhanka wiilka, waxayna ku tiri, tani waa inaad ii mahad celiso maadaama aan noloshaada ka badbaadiyey geeri hubanti ah. haddii aad baskaas kusii socon lahayd, noloshaadu isla markiiba way dhammaan lahayd. wiilkii wuxuu weydiiyey, maxaad ku hadlaysaa? waxayna bilowday in ay sheegto faahfaahinta ay ku aragtay baska. wiilkana wuu dhegaysanayaa, mana rumaysan karo waxa ay sheegayso. waxay tidhi, labada qof ee ugu dambeyntii soo fuulay baska ma ahayn bini'aadam, laakiin waxay ahaayeen jin isu ekaysiiye bini'aadam. waxay tidhi, haddii aad diiradda saari lahayd muuqaalkooda, wuxuu ogaan lahaa in aysan bini'aadam ahayn gebi ahaanba. muuqaalada wejigooda ma dhaqdhaqaaqeen gebi ahaanba, sidii ayagoo naf lahayn. haddii aad si fiican u eegi lahayd, waxaad arki lahayd in dharka dhaadheer oo ay xirnaayeen uu daboolay lugahooda oo dhan, waxba kamana muuqan, sababtoo ah habka keliya ee aad ku ogaan karto waa lugahooda, maxaa yeelay uma ekaan doono lugaha bini'aadamka. wiilkii isagoo yaaban ayuu yidhi, xageed ka ogaatay taas? naxdintu waxa ay timid markii ay sii wadatay oo ay tidhi, waxay arrintaasi xaqiijisay markii ay aragtay lugahooda, isla markii ay gadaasheeda fadhiisteen iyo in qofka dhexdooda kaga jiray uu ahaa kan keliya ee bini'aadamka ah, laakiin way dileen oo wuu dhintay. wiilkii markuu maqlay hadalkan oo dhan, wuxuu is yidhi, maya, hubaal haweeneyda waayeelka ah way riyoonaysaa, mana miyiri qabto. hadalkeeda muusan qaadan, wuxuuna iska watay wadadiisa oo gurigiisa ayuu ku laabtay. laakiin sheekadu halkaasi kuma aysan dhammaan. waxa soo socda ma ahaan doonaan wax la filayay, sababtoo ah subaxdii xigtay wiilkii waxa uu ka naxay war uusan filayn. baska ay shalay saarnaayeen waxaa soo baxay war rasmi ah oo sheegaya in la waayay, ayadoo aan wax raad ah laga helin. welina kuma usu soo laaban boosteejada. saldhiggu waxa uu booliiska u gudbiyey warbixintan, waxa ayna sameeyeen wax kasta oo ay awoodaan si ay u helaan, laakiin wax raad ah lagama helin. halkan booliisku waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen baska lambarkiisu yahay 375 bi ahaanba loo la'yahay. waxayna yiraahdeen qof kasta oo macluumaad haya ama baskaas raacay maalintaas ha yimaado saldhigga booliiska oo ha soo sheego isla markiiba waxa uu ka hayo oo warbixin ah. isla markii ay haweeneyda waayeelka ah aragtay weysiiskaas sheegaya in baskaas la waayay, waxa ay si toos ah u soo aaday booliiska, waxayna uga warrantay wax kasta ay ku aragtay baska habeenkaas. waxayna u sheegtay habeenkaasi si faahfaahsanaan ah, maadaama ay tahay markhaati oo ay la saarneyd habeenkaas. waxay tidhi, waddada dhexdeeda waxaan inaga soo raacay 3 qof. dadkaasi soo raacayna suurtagal ma aha in ay bini'aadam yihiin, waxay ahaayeen ama jin ama shaydaan. laakiin sida caadiga ah, booliisku ma rumaystaan waxa la yiraahdo jin ama shaydaan, mana furayaan gal dacwadeed ka dhan ah jin. waxayna yiraahdeen islaantan waayeelka ah way riyoonaysaa. hadda aan u tagno wiilkii dhalinyarada ah. wiilkii dhalinyarada ahaa asoo isaguna markii uu maqlay warka maqnaashaha baska aaday asna saldhigga booliiska oo u sheegay faahfaahinta oo dhan. 2 maalmood keliya kadib markii baskii la waayay iyo ka hor inta aan kiiska si buuxda loo xirin, waxaa yimid wicitaan maalintaasi yimid booliiska. waxa uu ka yimid mid ka mid ah dadka deegaanka u dhow biyo xireen go'doon ah oo aaggaasi ku yaal. wuxuu warbixintiisa ku sheegay inuu arkay bas weyn oo ku qarqarmay haradaas. markii booliisku aadeen goobtaas, uu sheegay, halkani waxaa yiilay naxdintii dhabta ahayd, sababtoo ah runtii kani waxa uu ahaa baskii lambarkiisu uu ahaa 375 ee la la'aa. waxaan idhi, naxdin dhab ah, sababtoo ah hadalkan aad hadda maqli doonto lama fahmi karo gebi ahaanba. goobta ay baska ka heleen, qaabka meedadka ay u yaaleen iyo waxyaabaha kale ay arkeen waxay xaqiijinayaan in wixii dhacay aysan ahayn fal bini'aadam, sababtoo in baska laga helay biyo xireen
oo qiyaastii 100 kiiloomitir u jira goobtii la rabay in baska uu joogo. Sababta labaad ee naxdinta leh waa in dhammaan kaamirooyinka ilaalada ee wadada ku xirnaa aysan muujin in bas wadadan uu soo maray ama uu ka baxay wadadiisa koobaad. Haddaba sidee buu baska halkaani ku gaaray? Sababta ugu xoogan oo dhan waa in shidaalkii baska ku jiray uusan ku filneyn in uu baska gaarsiiyo halkaan. Su'aashu waxay tahay sidee buu ku gaaray halkaan? Sidee buu ku socday masaafo 100 kiiloomitir ah? Waxa naxdinta leh ayaa ah booliiska markii ay fureen haanta shidaalka waxa ay heleen ayadoo dhiig ka buuxo. Shidaalna kuma jirin. Baska lambarkiisu uu yahay 375 waxay gudaha ka heleen 3 meyd oo qaab aad u naxdin badan leh loo dilay. Meyd waxa uu ahaa darawalkii baska, meydka kalena akaaliyaha darawalka. Kan ugu dambeeyana waxa uu ahaa meyd qof aan garanayn. Waxaana la filayaa inuu ahaa meydka qofkii ay hayeen labada qof ee baska soo fuulay. 3 meyd waxay u dhinteen hab qariib ah, naxdinna leh oo aan la garanayn. Booliiska iyo dhakhaatiirta dib-baarista toona ma ogaan sababta dhimashadooda. Meydka mid kasta wuxuu furnaa afkiisa, wajigiisana waxaa ka muuqday calaamado argagax iyo cabsi daran, sidii inay arkeen wax qulubtooda joojiyay. Ma dhab ah in wixii ku dhacay ay ahaayeen fal jinni, mise waa wax kale oo caqliga awoodi waayay inuu sharaxo waqtigaas? Noogu qoro aragtidiina iyo fikirkiina qaybta hoose ee commentiga. Waana intaasi sheekada